beri beriyaha ka mid ah waxaa tuulo yar ku noolaa gabar aad u qurxoon oo fariid ah iyo hooyadeed oo keliya ayaa halkan iskula noolaayeen iyagoo si wada jirta markasta wax u wada karsada una casheeya noloshooduna aad ugu faraxsan. Kadib gabadhii ayaa waxay jeclaatay nin deriskooda ah, kadibna waa la isku daray oo way guursatay iyadoo hooyadeed macasalaameysay kuna tiri halkan hooyo kelida ku noolow iskana fakar ama annaga na soo raac. Hooyadii ayaa u sheegtay in aysan halkan ka tegi doonin, nolosheeda dhanba ay ku nooleed deris fiican oo saaxiibana in ay leedahay. qaraar waxay ku gaartay hooyada inay halkaas keliyeed ku noolaato. Gabadheedina waxay tiri ha fakerin ee ninkaaga raac ayay tiri, iyadoo la ballamaysa reerkaagana si wanaagsan u dhaqo gabadhaydiyay. Kadib way macasalaameeyeen gabadhii iyo ninkeedii wayna iska baxeen. waxay socdaanba waxay tageen guri oo halkaas ninku ku lahaa oo kaynta u dhowaa. ninku waa mid wax iska kawinaya, halka gabadhu ay xasuusta hooyadeed ku nooshahay, sawirkeedana uu miiska u saaran yahay. waxay samaydo way garan laadahay maadaama hooyadeed aysa arkin ilaa iyo markii la soo guursaday. waxayna tiri hooyaday maxaa ku dhici kara kelideed, waa inaan hooyaday anigu aan booqdaa ayay u sheegtay ninkeedii. waxayna diyaarsatay boorso ay dhar ku ridatay, taasoo si degdega u doonaysay inay hooyadeed u booqato. kadib ninkeedii ayaa yidhi kelidaa miyaad baxaysaa, maxaa dhacay? waad og tahay inuu gurigu uu yahay mid cusub. kadibna waxay u sheegtay inay bixi doonto, hooyadeedna ay ka walaacayso maadaama ay keliya tahay. isaga wuxuu yidhi marka xaaskaygii waad og tahay inay ku nool yihiin kayntan xayawaan aad u xun oo dadqaad ah, ee maxaad kelidaa u baxaysaa? kadib waxay tiri anaa isbadbaadinaya ninkaygiiyo guriga adigu sii joog. kadib waxay baxday iyada oo kelideed ah oon wax dhibaato ka cabsanayn. kadib waxaa ka soo horbaxay yay aad u xoog badan, kaasoo ka xiray jidkii yirina gabar waxaa tahay aad u qurxoon oo dhaylo ah, waa inaan kugu qureecdaa. kadib way fikirto, waxay u sheegtay yayahow xooga badani, waxaan rabaa inaan hooyaday soo booqdo, kadibna waan kuu soo laaban doonaa mastariyey. saas ogow, imikana iska kay fasax, waxaa tahay nin qalbi furan ayay u sheegtay yeygii ayaa ku yidhi oma waxaad doonaysaa inaad hooyadaa booqato kelidaa? saas ayay u sheegtay, markii aan safarkayga soo dhammaystana waan kuu soo laaban doonaa. hal bil kadib ayay gabadhii u sheegtay yeygii ayaa wuxuu yidhi markaad soo laabato hooyadaa ayaan ku cuni doonaa, ee ballan iga qaad inaad isla markii jidkan aad soo mari doonto. haye ayay ku tiri. kadib aad ayay u faraxday, yeygiina wuu fasaxay. kadibna waxa ay socotaba iyadoo aad u faraxsan oon cabsanayn ayaa si dhaqsi ah waxa uga soo horbaxay haddana shabeel aad u xoog badan oo yidhi waxaad tahay gabar aad u qurxoon, aniguna maalmo badan waxba maanan cunin, waa inaan cunno macaan aan kaa dhigtaa. kadib waxoogaa ayay yara fakertay, waxayna ku tiri waxaad tahay nin aad u wanaagsan oo qalbi fiican, aniguna waxaan ahay qadadaada, laakiin hooyaday ayaa halkaas ku dayacan kelideed. markaan hooyaday aan ka soo laabto kadib ayaan kuu soo laaban doonaa, ee ifasax hal bil kadib sida yeygii oo kale ayay u sheegtay. waxaana kuu noqon doonaa cunno aad u macaan, kadibna waad i cuni doontaa. kadib yeygii ayaa yidhi okay, waan ku sugayaa waqti kasta, ogow inaan ku soo qaban karo aniga, ayuu u sheegay taageerkii. kadib wuxuu yidhi ballan iga qaad inaad hal bil kadib soo laabanaysa, aad waddadana soo mari doonto. kadib waxay tiri waan kuu ballan qaadayaa bay tiri. kadib way iska baxday iyadoo aad u faraxsan. kadibna waxay sii socotaba waxay gaartay gurigii aadka u qurxoonaa ay ku nooleed gabadhiina mar labaad iyo hooyadeed
ayaa si wada jirta u kulmay iyadoo hooyadeed habsiinaysa gurigiina ka caawinaysa. Kadib waxa uu sheegtay dhibaatadii ay soo martay iyo inay 2 xayawaan oo khatar ka soo badbaaday. Hooyadii ayaa aad u naxday, ileen waa beer wax jecel oo waxaas oo dhan oo khatar maxaad u sameeyday gabadhaydii ayay hooyadii ku tiri. Gabadhii ay aqliga badneed ayaa tiri, hooyo waxaan ku soo maray si aqli ah ayaan ku soo maray, waxaanan u sheegay mid kasta markii aan ka soo laabto hooyaday inaan cunno macaan aan u noqon doono. Hooyadii ayaa tiri, waa wax aad looga xumaado gabadhaydii, wadnaha haygoynin awalan duq ahaaye. Kadib hooyadii ayaa sir u sheegtay, kadibna waxay tiri, halkan waxaan kaaga goynayaa bocor aad u weyn, dhexda ka gal, kadibna buurta ayaan kaala tuurayaa, jidkana saas ayaad ku sii mari doontaa. Gabadhii ayaa tiri, hooyo waa fikrad wanaagsan, aad ayaad u mahadsantahay. Kadibna hooyadii ayaa la tuurtay. Kadib gabadhii aad ayay u faraxday. Halkan waxaa ku sugaya shabeelkii, kaas oo leh waxaan sugayaa gabadhii cunnada wanaagsan ee noqon lahayd. Kadib wuxuu maqlay cod ayuu maqlay, ileen waa gabadhii oo soo dildiloomaysa. Kadib wuxuu isku dayay inuu celiyo bahalka, laakiin taasi wuu awoodi waayey. Isla markiina jidka ayuu u banay isagoo kor u boodaya. Waa sheeko qosol badan. Waa yaaban yahay, wuxuu yaabanaadaba oo gabadhii iyaduna halkaas sii gadgadoontaba wuu ka daba cararay oo wuu gaari waayey. waa mid aad u xawaareynaysa. Kadib taageerkii ayaa yaaban ama shabeelkii waa yaaban yahay isagoo garka qabsanaya indhahana ka mirigsiinaya ayuu ka daba tegay isagoo daba soconaya. Kadib yeygii ayaa isaguna halkan ku sugaya ileen waa nin ballan sugaye oo yaaban isaguna waa inaan maanta sugaa. Kadib waxa wada kulmay shabeelkii iyo yeygii. war maxaa kugu dhacay halkan aad la yaaban tahay? wuxuu yidhi halkan inan ayaan ku sugayaa halkan, taasoo ay ballamisa safarkooda markay kasoo laabato inaan cuno. wartaasi waa mid aan waxba ahayn. anigu waxaan soo arkay buu yidhi wax dhagax aad u moodo oo soconaya, taasoo aan nafsadeeda uga cabsaday. kadib waxay go-aan ku gaareen inay dhagax af badan oo ififaya ay jidka dhan gebi ahaanba ay ku firdhiyaan oo af leh. gabadhii iyadoo faraxsan oo isla guriga ayaad gaari doontaa ayay ku soo dhex orday bocorkii. kadib maxaa dhici doona? miskiin ilaahay maba ogaba in shirqoor loo dhigay, labadooduna ay u heshiiyeen. sirnaagid lagama sal gaaro horaa loo yidhi. kadib waxay soo socotoba waxay soo gaartay dhagaxdii afka badnayd. qaar ayay ka soo gudubtay, laakiin markii dambe mid weyn ayaa ku yimid. isla markiiba waxaa dildilaacay bocorkii. kadibna bannaanka ayay ku soo dhacday kelideed, waxaana soo qaabilay yeygii iyo shabeelkii iyagoo leh oo ma waxaad mooday inan yahay annaga inaad si dhaqsaa aad nooga fakan doonto ood ballantana nooga bixi doonto. yeygii ayaa aad u qoslay, ilaan waaba la qabtay naagtii. kadib ayaa waxay tidhi war doqomo ayaa tihiin oo ma waxaad doonaysaan labadiinuba inaad aniga cuntaan? xoogaa garka ayay qabsatay iyadoo fakaraysa. labadiinuba inaad aniga aad cuntaan miyaad doonaysaan? iyaga ayaa waxay leeyihiin marka cunada buritiin kale saaxiib iyaysana dhaafin, awalay hore noolu geysay oo guriga naga soo riday. taasi waa mid kaliya aynu cunada ku wadaagi karno ayuu yiri yeygii, aynu taa samayno. haye ayay ku heshiiyeen labadii saaxiib, yeygii iyo shabeelkii. kadib gabadhii ayaa soo baxday tiri joojiya qosolka iyo waxaad meesha ku haysaan oo xayawaannimadiina waxaad doonaysaan labadiinu inaad wada cuntaan. war waxaas wax aqliya ma ahane ood cunno macaan iga dhigantaan. labadiinna waa inaad baxdaan ood dab shidaan, kadibna anigu halkaas dabkaas ayaan isku solayaa, kadibna labadiinnu halkaas ayaad igu cuni doontaan. kadib shabeelkii ayaa baxay oo qoryo aad u waaweyn ayuu soo guray. kadibna wuxuu soo qaaday 2 dhagax isagoo madaga isagoo isku lisaya. kadibna halkaas ayuu dab ku shiday. gabadhii geesiyadda ahayd ayaa dabkii isku soo aadisay, kadibna dabkii ayay ka bowday iyadoo
u sameeyay suuradeeda wax leh oo kale. labadoodii aad ayay u yaabayeen kadibna waxayba iska galeen bariyo. kadibna wuxuu sheegtay labadoodaba in ay ciqaabi doonto. markay riyadii ka soo kaceen kadib ayay gabadhii dab soo qaaday iyada oo ku tuurtay labadoodiiba. kadibna way gubteen. wari badbaadi ayaa ka dhacday halkii ay wax cuni lahaayeen. midba kaynta ayuu sidii wax waalan ugu ordayaa. midba kaynta ayuu sidii wax waalan ugu ordayaa. waa yaabeen ileen dabku waa waxune. kadib yeygii meel geeda ayuu isku tuuray. shabaalkiina biyo ayuu isku dhex riday. gabadhiina aad ayay u faraxday iyada oo jidka tartiib si nabad ah iskaga soo martay jidka soona aaday gurigii hooyadeed. ayay mar labaad kelideed iyadoo iska lugeynaysa. waxayna u soo laabatay andhaho ninkeedii isagoo aad u faraxsan oon malaynin inay soo laaban doonto xaaskiisa. saxaabay sheekadan xikmadda aan ka faa'iidaysanayno waxay tahay aqliga wanaagsan inuu yahay sad alleh. kadibna labadii ayaa soo muuqday iyagoo indhaha tirtiranaya raadinayana gabadhii iyo hooyadeed. si dhaqso ah ayay isla markiiba u soo degdegeen. gabadhii oo hooyadii oo isla socda ayay meel sheeda ah ayay ka arkeen. kadibna waxay noqdeen kuwo aad u soo degdegaya. halkan ayaan ku soo gogobaynaa sheekada asxaabey.